السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا برنامجka sirta qalinka oo aad daawan jirteen maalmaha jimcaha oo laakiin maanta ah sabtidii labaad oo aad barnaamijka uu maalin sabti ah idiin soo galo maanta oo ay taariikhda ku beegan tahay 25 bisha November sanadka 2023 sida caadada ahayd waxaa barnaamijka igala qayb galaya wasiir guuleed qaasim waxaana marti noo ah oo aad nala soo dhaweysaan qoraaga macallin ahna cilmi baare dhinaca dhaqanna kala duwanaanshaha iyo dhaqan isku dhaca waa aweys axmed cusmaan oo loo yaqaana aweys cusmaan aweys soo dhawow ku soo dhawow dhab t v guuleed waxaan u malaynayaa xagga cillad farsamo ayaa wasiir guuleed xaggiisa qabsatay baan u malaynayaa marka guuleed manala joogtaa way maqlaysaa sooma waa si fiican ha ila soo dhaweey meeshii meel yaroo ka duwan baan fadhiistay waa xalqadii toddobaadaan maraynaa barnaamijka waa soo sociyey wax badanaan soo wadnay marka wixii ilaahay raalli ka noqdo oo ilaahay suurtageliya ayaa suurtagal noqdo xalqadii toddobaad sanadka 2023 inaan 7 xalqadood ka gaarnay barnaamijka ما شاء الله دكتور أويس سو دhowow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan ku saaray iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan anaga dhabtii waxaan madashan u sameynay inaan kor u qaadno aqoonteena kor u qaadno haddaan ka hadlayno siyaasad iyo haddaan ka hadlayno waxyaalaha kale markasta waxaan rabnaa doodayna inaan kor u qaadno mid cilmiyeysan ka dhigno marka barnaamijkan oo sirta qalinka waxaan ugu talagalnay dee moogtahay aqoontii inaan ayadiina kor usii qaadno oo aan waraysanno aqoon-yahano Soomaaliyeed oo moogtahay qofku markuu aqoon-yahan yahay lagana faa'iido markuu wax soo qora laga sii faa'iidaya marka aweys baa maanta kursiga saaran marka dr aweys soo dhawow asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهي aad iyo aad aad idinkaga mahadcelinaa run ahaantii howl muhiim ah ayaad u haysaan dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadla meel walba ay joogaan maxaa yeelay maanta loo baahan yahay in aqoonta laga faa'iideysto oo isku keeno aad u mahadsantihiin ما شاء الله بل انت انا برنامجkeena gelin dr aweys buugaag badan buu qoray oo dabcan ka hadlaya ismaandhaafka ka dhaca dhaqanka markuu kala duwan yahay dadka ajaanibta Soomaalida waxay la kulmaan intaana hawshaas aan gelin bal aweyshow waxaad daawadayaasheena fikrad ka siisaa horta waa kuma aweys sooyaalkaagii shaqo waxbarasho horiimadaadii horta waa kuma aweys waa mahadsan tahay waxaan ahay shakhsi Soomaaliyeed waxaan deganahay magaalada Stockholm caasimada dalka Sweden ilaa iyo muddan deganaa yaraanteedii waxaan ku dhashay kusoo barbaaray magaalada Muqdisho halkaasoo iskool aan ka dhigtay ilaa iyo dugsi sare 15 May wardhigley ku yaala kadibna waxaan galay jaamacadda Lafoole waxbarasho dheeraad ah waxaan u raadsaday dalka India markaasay ii bilaabatay kala duwanaanshaha dhaqanka maxaa yeelay marka waddankaaga aad joogtid af Soomaali lagu wada hadlo dadka habka iyo wax oo dhan waa isku wada mid ma dareemi kartid inay adduunyada ay jiraan dadka duwan sida adigu wax u aragtid si kale u arki kara sida waxyaabaha adiga ku saxsan yani ayaga u saxsaneen marka waxaan bilaabay inaan ogaado waxyaabo yar oo aan kala duwanahay dalka India meeshaan wax ka dhigan jiray dalka jaamacadda Pune ilaa muddan joogay waa ka soo tagay haddana waxaan imid wadamada Carabta dalka Sacuudiga iyo dalka Imaaraadka waxa kale oo ii bilaawday dhinaca Carabta inaan af Carabigii meel lagu hadlo dad muslimiin ah laakiin aan waxyaabo yar oo aan kala duwanahay jira farqi ah badi waa isaga midnahay laakiin waxyaabo oo lagu kala duwan jira dhinaca dhaqanka aan ka hadlayaa kala duwanaanshaha dhaqanka marka uu kala duwan yahayna waxa waaye waxyaabo badan aad ogaanaysaa oo adiga aan leedahay aha buu maleynayay sida marka kala duwanaanshaha ugu weyn waxay ii bilaabatay markaan imid waddankan Sweden aan soo degay oo aan nahay dad af gooni ah dhaqan gooni ah diin gooni ah
ما حتى ما هدد بدي مارتي عبد الفتاح ويا خالد كريستال ما هو ضد الدين أي سنين وضد فرق وين نور بحير هانتي ماش أنا جا أنك الدولة اللي وحياة عن كل فكرينه حبك الدرس نمذا إن وحوض قيبسي وحياة بدنا في عنا لنا هاي وهي عن لهن وحياة بدنا أيك في عينا جرا وأنا جا أنا هي سنين وحي مركي أنا حقلي أيا مركتي هذانا على الشقي أو إحنا وقاعدين كلتو كروجا إنه يهي أما كلاش أوف كالتشرز إنه يهي موضوع مهم oo keeni kara is-afgarawaa kaasoo keeni kara naceeb abuuri kara naceeb discrimination midabta kor uu keeni karaa wuxuu keeni karaa dadkii habkii adiga dadka ula shaqaysan lahayd xataa inaad ku shaqada weysid dad badana ku shaqa waaye habkii ayaga ay ahaayeen ay dhexmi jireen iyo habka dadka ay hoostiga ayaa iskhilaafi waaye qofka loo riyaaxo qofka la jeclaado qofka shaqada la siiyo dhammaan waxay ku xiran tahay isku soo dhawaanshaha dhaqanka wadamada kale sida la socotay Soomaalida anaga dhaqankeena Soomaaliya inkastoo uu yahay dhaqan anaga noo gaar haddana waxaan leenahay wax Ilaahay noo dhaliyo ah xirxirnaan inaan anaga si aan dadka kale u dhaxgalno waa naloo fiican yahay yani sahal maaha marka waxaan nahay dad ishadal bartay anaga inaan group aan kulanno xataa meesha qurbaha meel walba la joogo waxa arkaysaa maqaayado Soomaali ay ku kulmaan aniga isjecelnahay marka dadkii kale siyaabo aan baran ugu dhaxgalno dad madihis mujtamac furan taalaftigeeda waxay kamid tahay waxyaabaha dhaqankeena u gaar ah oo loo baahan yahay in tooshka lagu iftiimiyo oo la baaro marka tii ay u dhalisay inaan maragtay ilaa iyo hadda meeshan aan muddo ka shaqeeyaa waxyaabaha aan qabto waxaa kamid ah in buugaan qoray Spanish-ka fiika la dhaho arrimahaas ku saabsan marka Soomaalidana wax waa baraa dadka Swedish-kana waxaan ilaa 4 sano waxaan bari jiray dhaqanada kala duwan iyo dhibaatooyinka ka imaan kara jacayl aan qabo ayaa waxaadna sii bilaabay inaan sii barto international cultural communication jaamacadan sii wato si aan arrimahan aan maaragtay dad badan ugu faa'iideeyo ما شاء الله سفي عن سؤال شلبات كدب عبد الفتاح والكوري كذا بوق مركز قري سيد هدي أن وقت يصور دقنو بوقات يتقرطي يصير هذا الشيء تي أنت بدنا نقول حق كشقيسا دقن كculture ما كشقيسا كلا دوانين شداس استحقال كاس هذا كهذا الشيء ضد سوامالي هذا السودين اللي دقيقين أو دقن يدي يأكل كلا فوق بامرشا كوتشرة marka markii aad buug qoraysid kaba soo qaad buuggaagii ugu horreeyay Stainless Code ama ariga aan haraga lahayn buugga ayaad u qoraysid dabcan yaad rabtay inay buuggaas ay akhriyaan oo ka faa'iidaystaan mall groupka ama dadka aniga niyad aan ku hay marka qoraaga marka hore uu wax alifo uu qoro aniga waxa iga heed waxaan isla markiiba niyadeeda ku jirtay international inuu noqonayo inaan ahayn kaliya wax Soomaaliya ku kooban maxaa dhacay ma aha kaliya Soomaaliya kaliya ma qaabilsana iyo Indiana waa marka waxaan ugu talagalay dadka Indiana inay ay bartaan ay ogaadaan waxyaabo badan oo khaldaad badan oo dhaca Soomaalidana inay bartaan India iyo meel kale dadkii kalena inay ogaadaan multiculturalka ama kala duwanaanshaha dhaqanka waxyaabaha uu keeni karo marka sheekada ugu horeysay waxaa ugu talagalay Soomaali badan inay Soomaali loogu tarjumo waa la tarjumay inay ay ka faa'iideystaan oo ay ogaadaan oo ay bartaan iyo dadka ku hadla afka Englishka xiiseeya arrimahan oo kale صح وانا ارجنا بوقي قرطي او هذا u jeedno Stainless Code oo dabcan loo turjumay afka Hindiga iyo afka Swedishka waxaana kaloo tiri af Soomaali ba ها عبد الفتاح مية ورالي هو وزير قولت أويس بوجو وحنا أقنعي إن أف صومالي هان وترجمة سر بودر ورسمة وكترجمة سونيتا علمي على عاشق سونيتا وكترجمة مركا أفكي هندية ما دام أي قصة مركا الهندية جوكتاي قريسي جامعتنا أتكبر لك تهلكاس حتى هندية في سوريش لغو ترجمي أفهندي هورتا ما لغو ترجمي سؤاشاس با آدان سوي دينيني أنغا أفهندي ما لغو ترجمي بوغا وأنا أقنا سويدش يا صومالي ولغو ترجمي إنجليش نواد كو قرت
may waa arrin fiican waa dad badanna waa ay weydiiyeen maadaama sunnita ay tahay hindiyad oo hindiyana ay samaynayaan marka hadda markii mar aan joogay Kenya aan tagay oo aan geeyay kan Englishka iyo kan Soomaaliyana waa geyn doonaa ayaa waxaan la kulmay dad hindi ah oo jeclaaday haddii ana u siiyey marka waxa hadda aan ku fikiray xiriir aan leenahay Indiana waxa waaye sheekada way taabanaysaa way qusaysaa afka Englishna waa ku qoran yahay inaan la xiriiro oo loo turjumo afka India siiba hindiga sida la socotay hindida waxay ku hadlaan afaf kala gooni ah sida Marathi marka Pashto Dari waxyaabo badan marka laakiin afka national kooda waa hindiga marka hindiga isku dayana inaan turjumo waa ra'yi fiican waa mahadsantahay ku soo cabirtaa ha waa arrintan haddaan xoogaa in kasii taabano isku dhaca dhaqanada waxaan rabnay inaad noo sharaxdid waad sheegtay waxaad tiri kooxda aan wax u qorayo aan diiradda saaro markaan wax qorayo waa afaf kalaad ku qortaa af Swedish iyo English aad ku qortay buuggaagii Soomaaliga waa lagu turjumay buug kale iyo hawl inaad wadid Soomaaligana maqaalaad ku qortaa sheekooyin gaaban iyo dhacdooyin lecturaad ku soo jeedisaa dabcan waxna waa ku baratay laakiin dhaqan markii laga hadlayo haddaan u soo noqono horta waa maxay dhaqan intaan dhaqan isku dhac tegin marka ustaad Aweys uu ka hadlayo dhaqan maxaad ku macnaysaa Aweys dhaqanada isku dhacaya maxaa dhaqan ah maxaa qofka dhaqan u ah raalliyow waa su'aal fiican dhaqan marka hore ma aha wax bini aadan shakhsi ama dad gaar ah oo ayaga ay ogyihiin xataa waqtigu sameysmay dhaqan waxa waaye habka loo dhaqmo soo jireenka markuu qofka dhasho waxa soo galaya maaragtay afka uu ku hadlo in dadka habka ay maaragtay ay xiriirka ka dhaxeeya dadka jiiraanka waxyaabaha ceebka oo kala meesha waxyaabaha dadka lagu faano waxyaabahaas oo dhan oo wada kulmay luqadii afkii dadkii sida ay xiriirka ka dhaxeeya maaragtay bini'aadankaas meesha ku nool oo group ah waxay samaysteen hab ay isku la xiriiraan oo ay u arkaan inuu yahay dhaqan fiican marka habka ay muddo dheer soo jireen oo matalan ba aan la dhihi karin generationkan kaliya bilaabay dhaqanka waa la dhaxlaa waxaa laga dhaxlaa aabayaasha ilmaha waxay bartaan meeshay ku dhasheen dhaqanka loogu dhaqmay ay yeeshaan marka dhaqanka waxyaabo badanaa soo galaya oo ah habka nolosha habka xiriirka asiga qofka siduu asigu fikiro uu la leeyahay iyo xiriirka dadka kale uu la leeyahay matalan jiiraanka asxaabta kale dhammaan waxa la isku wada raacay habkaas loo noolaado ayaa maaragtay habkii dadkaas ay u dhaqmaayeen marka waxaa imaan karta inuu habka noqdo hab aan saxsaneen oo laakiin la qaatay ayaa dhici kara iyo hab maaragtay qaar ka saxsan qaarna qaldan marka waxaa muhiim ah dadka in aniga ahan waxaan aaminsanahay dhaqanka waa fiican yahay waa wanaagsan yahay in maadaama awoowayaashii hore laga soo dhaxlay oo la isku wada arkay dhaqankeenana wuxuu salka ku hayaa diinta islaamka waxyaabo badan oo diinta raali ay ka tahay laakiin waxaa soo geli kara waxyaabo caadooyin ah oo dhaqan ah noo noqday oo haddana qalad ah waxyaabahaas waxaa fiican in caqliga iyo diinta inay naga reebto oo si dhaqankii uu noqdo mid saafi oo wanaagsan haddii ay leedahay cabdifataax yani dhaqanka ma jiri karo maaragtay waxyaabo qalad ah ama waxyaabo dib u dhac keeni kara oo haddana loo baahan yani dad badan waxay ula doodaan dhaqanka waa saliim awoowayaashii laga soo gaaray waa wax fiican boqolkiiba boqol dhaqanka waa fiican yahay laakiin wuxuu wadan karaa awoowayaashii hore waxyaabo si jaahiliin soo galay loo soo geliyey aan dhaqan Soomaali ah kadibna dhaqan noqday oo ilaa hadda la sii haysto oo loo baahan yahay in laga takhaluso dhaqanka hadduu ka soo halkan laba su'aal kaa weydiiyo aweyso laba su'aal aan kaa weydiiyo midda hore waxaad ka hadashay buuggana ka hadashay dhaqanka Soomaaliga iyo dhaqanka Hindiya oo isku dhacay wiil iyo gabar oo wiil Soomaali gabar Hindi ah isla markiina buugga cinwaankiisa af Ingiriiska waxaa ka dhigtay skinless goat kelmaddaas aniga aad ula yaabay horta xagee baa kala timid kelmaddan skinless goat kelmadda waxay muujinaysaa skinless goat waxay muujinaysaa wax aan maaragtay run ahaantii aan dhici karin sheekada markii qofka uu akhristo wuu fahmi karaa anigoo yaraa sheekadan maqlay buugga sheekooyinka ku jira inkastoo mala awaal oon aniga alifay laakiin horaa waxaad ogaataa mar walba wuxuu ka duulaa
waxyaaba asiga soo maray ama maqlay ma jiro qoraa intuu maaragtay wax iska maaragtay imagination ma jiro xataa sheekada meelaha ay ka dhacday oo dhan aniga Jabal Buur waa deganaa asxaabtu way jiraan sunita waa qof jirta oo maaragtay caadi ah marka qaar ka mid ah sheekada waa run marka skillless good in Somalia waxay sheegaysaa in ma jiro ri oo maaragtay haraga laga qaaday oo maaragtay waa waxa ugu daran bini'aadanka caada ka dhigi karo marka taa hadday dhacdo hataa in maaragtay dadka maalintii koow ay arkaan ay ka yaxyaxaan oo ay u arkaan wax cajiib ah laakiin wixii haddii maalin walba ay arkaan noqonaa normalization ama normku ka mid noqonaa waa loo qaadanaa marka taa waxaan ula jeedaa waxa waaye gabar hindiyad ah Soomaalidu waxay u arkayeen nin madow inay jeclaadaan isguursadaan wax cajiib annagana waxaan u arkaynay gabar hindiyad ah marka laakiin weli lama bilaabin haddii wixii markii ay isbarteen oo ay dhibaatooyin badan la kulmeen markii dambe ay u noqdeen sida dad maaragtay caadi ah marka wax walba marka koowaad uu yahay wax lala yaabo cajiib ah maalinta labaad waxa waaye waxaa ku dhaca markii indhahaaga uu barto waxaad leedahay wixii waa sidaa marka sheekada taasay ku imaatay ha may hal su'aal baan rabaa cabdifatax inaan kaa boobo hadduu ilaa yidhaahdo buugga haddii aan soo koobo waa sheeko jacayl oo dhaqamada kala duwan Soomaaliga iyo Hindiga iyo wiilka iyo gabadha iyo caqabadaha ay la kulmayaan iyo qoysaskoodii iyo bulshada bal adaa buugga qoray haddii aad soo koobaysid buugga oo moogtahay akhrista cusub oo u dhiibaysid adoon sheekadii oo dhanna bannaanka soo dhigno buuggii la gataa la rabaaye bal buugga inoo soo koob waxa laga faa'iidayay iyo sheekada waxay ku dhisan tahay marka hore buugaagta waa laba kan skillless good waa sheeka dhaqanada kala duwan dhinaca jaceelka kan kale Isbaaniska fiika purely waxa waaye wuxuu ku saabsan yahay dhaqanada kala duwan goobaha shaqada waxa waaye wadamada Yurub ajnabiga badan soo gala oo dhaqankoodii haysta Soomaaliya markii ay yimaadeen oo ay yimaadeen dad Swedish ama dad cadaan ama dad European ah oo ay rabaan inay wada shaqeeyaan waxa meesha ka imaan kara isku dhac taasoo ku saabsan yahay Isbaaniska fiika kan kale skillless good ama sunita waa sheeko ku saabsan wiil Soomaaliyeed Umar la dhaho oo waxbarasho u tagay meesha asagii asxaabtiisa wada degan siyaabaha ay u fikiraan wuxuu maaragtay waxay ka keeneen awoowayaashoodii hore habkii Soomaaliya sida cuntada ay cunaan sida ay u hadlaan sida u sheekaystaan iyo xataa kama maqnaa qabiilkii lagu soo barbaariyay iyo maaragtay waxyaabihii Soomaalida dhaqankooda ka mid ahaa marka ayagoo sidaa ay joogaan Umar ayaa wuxuu la kulmaa gabar oo uu jeclaanayo marka jaceelkana iyo qalbigana ma laha xuduud ma laha qabiil ma laha maaragtay wadan marka waa furan yahay marka ninkan maadaama uu arkay qof bini'aadan wanaagsan ay isfahmeen isku soo dhawaaday wiil dhalinyar u ahaa labadoodii kala duwanaanshihii ay kala duwanaayeen dhinac walba oo afka diinta iyo maaragtay dhaqanka habka waxyaabo badan ay ugu kala duwanaa ayadana waxay ka dhalatay dad gabar Hindu ah oo dadka dhaqanada xataa India waa wadan weyn ayaga dhexdooda isma yaqaanin waa kala dhaqan marka dadka waxa waaye Jabal Buur waa meesha baadiyaha oo dadka Hindu culture-ka uu aad u xoog badan yahay dadkaas ka dhalatay oo aan xataa wax xiriir la lahayn dadka kale ajaanib oo maaragtay qaarkoodna ay necab yihiin sidaas ay tahay ayay haddana ay isku soo dhawaadeen marka buugga focus ku saaraa labadaas qof oo kala dhaqan duwan oo Hindi iyo Soomaali ah oo isjeclaaday oo dhibaato badan soo maray kadibna arinta ay siyaasad ay gaartay safaaradii oo sidii Hindi oo kale ilaa iyo ugu dambeyntii inay Soomaaliya Muqdisho ay imaanayaan la soo dhaweynayo oo meeshii ay ka mid noqonayso maaragtay kaamilka Umar ay ka mid noqonayso taasoo ku saabsan yahay marka haddii may buugga kale waan gelaynaa kan horta aan dhabaysano buugga kale waa arrin aad loo xiiseeyo dabcan dadkeena qurbaha jooga markay shaqooyinka tagaan iyo bahdilaadii la kulmaan laakiin laba su'aal baa inoo hadhay buuggan gabadha sunita mar haddaba hadday jirto oo ay tahay qof jira oo magaceeda la hayo cumarna waa u jiraa soomaa waa qof jira cumar soomaa waa jiraa marka dee cumar waa kuba curma adigaan kugu ognahay inay Hindiya jaamacad kusoo dhamaysay
عمر ما أديك مسوا شخص كله مثل شركة سكة لوتين والسؤال في عن سؤال شان ضد بدن وأجنبي كمية أو مركي إن حيدهان أو بوجا يحيسين ورئيس اللي يعيش سؤال شو هو رئيسه وحواي وحيد عمر أبي بيا معي اللي واضح له قاضي ما دام أنيقا awees a idinka soo dhexgale hindiya meelihii baad noo sheegtay buugga kan afiswilish baan ku aqri uu ku dhex geynayaa jaamacaddii dadka qaar inspirationka aad ka qaadatay marka qofkan waa la isweydiinayaa intuu wareegayaa ma aweesba ma saaxiibkiisa ma ardaydii ka horreysaya ma ardaydii ka dambeysaya وسؤال في عن وكجواب عوضة وحواي دهن كخاضع وشيء إن ما أردت بجرا شيء فيكشن أبغى كي بقول إن عمر أصحاب تلانول أي وده دوب جرين وماش أي فريس جرين لما أنتوا دي وده جرا عيلة عبد الرزاق ماركته عمر علي لما أنا وحنا هنا أنا وقف شنا أو سدحنا يدقين يا القاضي سدحنا قل كله اسكودو ayaa waxaan ka haysanay qof noo shaqeeyo hindi ah jaamacadna waa dhigan jirnay sheekada meesha ka dhacayso dhan waa anaga cumarkiina anigu ahaa marka koowaad run ahaantii haddaan kuu sheego macalinkan mukarjiyo imtixaanka loo tegi jiray anigaa u tegi jiray gabadhii sunita waa arkay waa ila hadashay marka qalbigayga waxaa kusoo dhacay gabadhan saa u quruxda badan oo xataa dadkan Soomaali ma yaqaanin waxay igu weydiinayaan marka dhahay ma marka qaarkood Soomaaliya dhahay waxa waaye wuxuu ku soo qaadanaa Latin America yani dad waxay ahaayeen xirxiran kala aqoon marka weligoodna Africa ma tegin marka waxaan is dhahay haddii gabadhan ay isfahamtaan maxaa odaygan hadda maanta sidaan ku jecel muxuu sameyn karaa tiya marka waxaan ku fikiray inay sheeka noqon karto anigana qoritaanka waa jeclaa markaan gurigeyga waxaa alifay sunitadii inaan maaragtay daayir oo kala ka dhigay gabadhan la hadlay gabar qurac marka sheekadii intaasi aniga iga ag tahay hore uma soconin abahantii wixii kala dhaw aniga ku daray fiican ما good هاي عبد الفتاح marka adiga saaxiibada sheekada wad buuxiseen fantastic wixii kale waa si buuxiyay waxaan dhahay sheekada haday dhacdo waxay noqon kartaa wax fiican marka dad badan oo meesha ku jira run ahaantii waa jiraan laakiin inta kale waa fiction بوهيتات أما وملا أولا صح ما شاء الله good هل كان السؤال هذا كان ويديو waxaan u qaatay skinless goat inaad ka wadid wax la yaab leh dabcan dhinaca kalena af Soomaali marka lagu turjumay magaca sunita marka maxaad u raadin weyday wax la yaab leh af Soomaali u dhigan markaan ma ogtahay buug marka la turjumo taana waxaan rabaa inaan ka hadasho farsamada buugaagta la qoro la turjumayo marba waxaa laga turjumaa waxay dhahaan direct translation kelmadda say u qoran tahay marna waxaa laga turjumaa waxaa ka dambeeyey qoraalkaasi marka go'aankii aad sunita uga dhigtay cinwaanka buugga iyo maxaad u raadin weyday wax kaloo ma ogtahay la yaab leh horta markii la turjumay go'aanka ani kaligayga ma lahayn dad badan aan kala tashaday oo kalaha sida Boodhari oo buug turjumay waa soo qaadnay magacyo kala nooc ah soo qaadnay marka magacan sunita waxaan ugu dhignay waxa waaye sunita waa magac qof dumar ah dadkana dumarku way u naxariistaan oo waxa waaye Soomaalida maadaama Soomaali lagu qoray interessant ay u noqonaysaa isla markii waa soo jiidanaysaa haddana magacii sunita waa magac hindi ah oo aflaamta hindiga badanaaba oo ma kuma cusbo Soomaalida tan kalena sunita waa focuska buugga sheekada waa qof muhiim ka tahay ayada iyo Umar marka sidii aan sunita u dooranay fiican waa buugaag badan uu turjumay oo xaqiiqdii baahi weyn oo xaggaasi ka taagneyd ayuu wax badan ka daboolay waxaa ka mid ah sahankii Richard Burton buugaag badan oo cilmi iyo aqoon badan iyo xadaarad nooga maqan tahay oo af Ingiriis ku qornaa ayuu af Soomaali ku turjumay tallaabooyinka runta ugu quruxda badanna waxaa ka mid ahayd kan inuu skinless goat in Soomaaliya inuu isaguna uu noo soo Soomaaliyeeyey si aan ugu raaxaysano marka isagana maalin baan keeni doonaa sirta qalinka insha Allah
saaxiibkii boodhari wuu noo imaan doonaa insha allah halkaa waxaan ka faa'iidaysan doonaa tabaha turjumaada insha allah maya waa wax loo baahan yahay waa wax aad loogu baahan yahay dabcan moogtahay dalkii markii uu burburay aqoon-yahanadii qaar badan dibadday ku maqan yihiin waa kana af Swedish wax ku qoraya af Ingiriis wax ku qoraya iskuuladeenii inta badan Soomaaliya moogtahay buugaagta la helay waa buugaag second waxay dhahan third hand oo moogtahay meelo badan soo maray waxa cusub oo la helana tayadooda ma fiicna marka farsamo ahaan su-aasheedu waxa weeye farsamo ahaan buugaag badan baa loo baahan yahay in la bedelo oo science ah oo taariikh ah oo waxyaalo badan meelo badan soo maray oo caalamkay kala faa'iidaystaan Yurub hadda intaasoo luuqadood buugaagtooda aad bay u kala turjumaan oo kala faa'iidaystaan marka haddaan Soomaaliya nahay adoo moogtahay koofiyadii qoraa ah adoo gashtay farsamadaa inooga waran boodhaa waan helaynaa laakiin adaa maanta ku haysanaaye farsamadaas inooga waran habka macluumaadka ku jira buugga dabcan loogu turjumo af kale iyadoo la ilaalinayo moogtahay culayska uu leeyahay macluumaadkaas horta shaqada hawsha turjumaada ma sahlana turjumaada ma aha kaliya word to word ma aha eray soo qaad eray kale u bedel ma aha maxaa yeelay aniga xataa turjumaad kala ku shaqeynaya halkan oo la dhaho scribbling oo qoritaan ah badanaaba markii la soo diro aan turjumayo energy ay kaaga baxay maxaa dhacay eraygii haddii aad eray iyo eray isku turjuntid waxaa laga yaabaa af markuu yahay afka Swedishka ama Englishka waxaa jira wax la yiraahdo cultural meaning uu leeyahay dhaqan ahaan macno u gaar u leeyahay erayo marka eraygii hadda sidii uu turjuntid macnihii ma yeelanayo afka Soomaaliya ma ku yeelanayo marka waa inaa heshaa wax u dhigma wax erayo waxa jira maldahan waxa jira erayo sarbeeb ah erayo marka turjumaada waa hawl weyn oo adag markii buugaag la turjumayo Soomaaliya waa baahan tahay laakiin waxa dhibaato ah maadaama dhammaanteen aan ka war hayno dalkeena sidii hore inuusan u xooganayn wasaaradda tacliinta sare wasaaradda waxbarashada yani in la kontroolana waa loo baahan yahay markii buugga la tarjumo buuggaas ma yahay mid mujtamaca faa'iido u leh mise waa mid commercial faa'iido u leeyahay taana waxa waaye muhiimadeeda leedahay maxaa yeelay buugaag badan oo waxaa jira oo cilmi ah oo waddanka mar walba laga faa'iidaysan karo laakiin aan lahayn dadkii aysan jecleen iyo buugaag kale oo maaragtay oo dhaqanka xumeynayo maaragtay laakiin dadka ay jeceliin marka su-aasha waxay tahay maxaa la raacaa maaragtay faa'iidada dhaqaale mise waxaa la raacaa faa'iidada mujtamaca ay faa'iidaan nasiib daro waxa weeye maanta cid khashbinaysa male sidaa darteed arrinta waxaan leeyahay waa arrin weyn oo loo baahan laakiin waxaa muhiim ah in tarjumaada la badiyo shacabku way ka faa'iidaystaan maxaa yeelay Soomaaliya waa u baahan tahay in waxyaabo badan oo ayaa lagu soo shubaa social media nin walba meel ka maqlaa dadkii haddii maskaxdooda ay dhisanto oo buugaag kala nooc ay akhriyaan ma walba waxay noqonaysaa inay ay maaragtay ay isbedelaan weliba aniga waxaan ku talin lahaa si dadka loo soo jiito buugaagta ha loogu dhigo waxyaabo oo ay ku abuuraya inay jeclaadaan inay wax akhriyaan maxaa yeelay Soomaalida wax ma akhriyaan wax akhriska waa ku adag yahay haddana waa laga sii tagay maxaa yeelay dadkoo dhan telefishinkiya ayaa loo soo wareegay marka in buugaagta loo tarjumo buugaagta baahida ka jirto matalan waxaa jira buugaagta wadamada saa la socotay wadamadan Yurub laftigooda buugaagtii la akhrisan jiray xisaabta iyo juqraafiga 10 sano ka hor hadda waa isbedeleen mar walba qoraalada maaragtay maxay dhahan ra'yiyada iyo waxa lagu sameeyaa wax la yiraahdo waa la sii horumariyaa research markuu soo baxo waxay badan soo kordha marka Soomaaliyana in sidaas oo kale loo bedelo waa loo baahan yahay khidmad badan inay helaan run ahaantii halkaas su'aalan kaa weydiiyo waxaa tiri mar aad Nairobi tagtay oo buugga geysay asagii af Soomaaliya Ingiriis ah oo la kulantay bulsho reer Hindi oo rabay buugga inay af Hindi lagu qoro horta ma la kulantaa akhrisiyaashaada ma la kulantaa falcelintooda ma dhegaysataa dadkii buugaagtaada akhriyay buugga labaad baan rabay inaan u gudbo buugga kale laakiin kan intaana ka guurin buugga Sunita markaad geysay Nairobi waan aragnay baraha bulshada oo dad la sawiran oo buuggaasi dad u dhiibaya falcelintoodii nooga waran
horta buugga sunita ee af Soomaaliga ku qoran yahay kan Englishka labadaba marka run ahaantii waxaan ka helay wax ii dhiirigeliyay xataa inaan maalgelin ku sameeyo in la tarjumo in la sii wado waxa waaye buugga qofka qoray asiga maaha qofka loo baahan yahay inuu jeclaado u riyaa haddii buugga qoraaga kaliya uu jecel yahay dadka aysan jecleen buuggaas ma socon karo marka waxa igu dhaliyay waxa waaye waxaan helay dad xataa aanan aqoon isku lahayn oo Facebookga igala soo xiriiray oo buuggii akhriyay dad soo dhigay Facebookga oo sunita markay akhriyaan oo waxaan arkay qof dad i dhahay ilaa aan ka dhameeyo waa dhigi kari waayay waxa la sheekadii marba isku sii dhiibaysay qof waxaan arkay i dhaha waxaan joogaa hadda waxaan marayaa markii dadkii maaragtay dagaalka dhacay Jabal Buur oo magaaladii ay kala xiran tahay ajaanibtii oo dhan ay weerareen marka waxaan dareemay dhaheen sida anigoo meesha joogo kale cabsi ayaa gashay marka ilaa iyo hadda waxa waaye dad badan maaragtay way kasoo jawaabeen waxayna laakiin ilaa iyo wili sidii la rabay uma gaarin taana waxa ugu wacan dadka Soomaalida saan hore u sheegnay in maaragtay meel walba lala hadlo loo sii sheegay ma aha dad soo raadsanaya buugaagta buugaagta waa in buug loo geeya waxa waaye culays xoog leh ayaa meeshaas ka jira waxa waaye waa kugu raacsanahay buugaagta inta qoraayada ay hadiyad ku bixiyaana nagu badan marka waxa waaye wacyigelin xoog leh aan ka wadnaa mana ahan wixii mararka qaar lacag iyadoon laga samaynaynin oo ujeeddada ay tahay keliya buugaagta kale ee hadda waan ogaa buug kalaad waday laba buug kalaa waday mid af Soomaali ahaa marka waa culays jira dadkeena inay ku dhiiradaan inay buugaagta iibsadaan keliyana maahe inay isu akhriyaan isla akhristaan aad bay u fiicnaan lahayd hal arrin ku daro qoraaga markuu buug qoraayo niyadiisa kuma jirto imise lacagaa lagu geli doonaa yaa iibsan doona waxa waaye qoraaga markuu wax qoraayo waa jecel yahay jecelkaasaa energy awada xataa waxaa laga yaabaa inuu qoro aniga hadda waxaa jira buug aan qoray oo manuscriptigiisa aan qoray ilaa intaas ah oo yaala yani sheekadii ayaa sidii meeshii aan ka rabay waa waayay meel aan dhigay mid kale aan bilaabay marka uu qoraaga uu qoraayo habeenkii oo dhan uu ka fikraa waa jaceyl xataa meesha markuu tareenka saaraya dareeray soo nololayo uu qoraayo kadibna sheek ka sameynayo waxaasoo dhan ma aha driving forcega ma aha faa'iido lacagtu waxay ama ha timaado ama ha yimaanin laakiin qoraaga asiga inuu buugaas qoro ayaa farxad oo dadka ay ka faa'iidaystaan marka waa juhdiga iyo daabacaadda gasho inay un soo noqoto si buugagta kale loo daabaco waxaan u malaynaynaa waxaan u gudbaynaa qaybtii kale ee ku saabsanayd svenska fika buuggan waan akhriyey qaybo ka mid ah marka aan barnaamijyada isku dhaca dhaqanada iyo aan ka hadlayo waan isticmaalaa tusaalooyinka qaar anaa shakhsiyan dareemaya professor Benny Carlson inuu ahaan u malaynayaa oo dadkii buugga wax ka qoray ka mid ahaana kelmad cajiib wuxuu yiri awees buuggani markuu qorayay isagaa ku dhex jira daraasaadda uu awees samaynaya qaybuu ka yahay ku qoran marka awees ma la dhihi karaa sheekadaadii horene waad ku dhex jirtay marka ma la dhihi karaa awees mar walba isaga iyo buugagtiisa waa isku dhex jiraan awees kaliya mahe qoraa kasta run ahaantii buugga waa inuu ku dhex jiraa maxaa yeelay waxyaabaha uu qoraayo waa waxyaabo oo asiga maqlay ama personally ku dhaceen ama waxyaabo nolosha uu ka rabo dhibaato uu arkay ama jiiraanka ku dhaco wixii uu arkay in uu rabo inuu fasiro dadka u macneeyo marka buuggan svenska fika aniga waa ku jiraa run ahaantii qaarna aniga igu dhacday qaarna waa maqlay laakiin haddii wax kugu dhacaan waxaas haddii aanu yahay waxaadi keligaaga kugu dhacay oo aan la dhihi karin generalization wax la dhaho oo dadkan marka waxaa lagama iibsanayo yani ma noqonayo wax laakiin haddii arinku qabsatay aad aragtay dad badanna ay ku dhacday qaarna ay ku dhici karto oo waxaasna ay ugu wacan tahay dii maaragtay kala duwanaanshaha dhaqanka
isla markii markaa qortay dad badan arkaysa oo maaragtay isla markii dhahaya anigana way ugu dhacday waa sida taa waay marka wax muhiimka صح okay aweyso marka laga hadlayo isku dhaca dhaqanada wax oo u gaar ah kaliya wadamadii aad barbardhigan ku samaysay oo ah noloshaadii India noloshii bariga dhexe dalalka Carabta iyo tii Sweden iyo tii Soomaaliya adduunka oo dhan bay ka dhacdaa meel walbayna ay ka jirtaa waxaad xustaa hal ama labo oo adiga aweys ahaan markaad soo xasuusatid isku dhaca dhaqanada ee kaa quslisa ee buugaagana qaybka ee ku jirta Svenska Fika waxaa ka mid ah horta intaan su'aashaan waa ku jawaabaa waxay dhahaan dadka ka fadciliyey waxa waaye waxa ugu horeeya email aan ka helay gabar oo saan u malaynayo waa dadka indhiyarta oo kale maaragtay laakiin wadankay ka dhalatay ma sheegin wadankana muddo joogtay waxay ii soo qortay warqad dheer oo ay leedahay buugan markaa akhriyay waa ooyey maxaa dhacay aniga iska dhex arkay problemka meesha jira anigu hadda i haystaa horena waa ay haystay marka waxaan aan ogaaday marka dadka badi inay marka ay iska dhex arki karaan oo dadka ajnabiga ah marka su'aashaada ah waxyaabaha aniga oo tusaale ahaan maaragtay aniga mentality waxaan ku imid run ahaantii mentality waxaan kusoo koray oo ku imiday kheefka inuu yahay kheef yani kheefka waxaa ka wada directorka ama ha carabtana waa saas booska marka wuxuu leeyahay position gaar ah markii lala hadlaayo markii hawsha ta labaad waxaa kaloo maaragtay aan kusoo barbaaray waxaa waaye hawsha in haddii howl badan aad qabatid wadamada carabta aan shaqayn jirnay yani xataa waqti dheer aan shaqaynaynin waqtigaas dheer aan shaqayno iyo xataa aan dhiigana u hurnay hawsha waxay ahayd wax positive ah bilcaks yani qofka haddii uu dantiisa ka fikirin oo waqti dheer uu shaqeeyo ama uu matalan asagoo faa'iidana ku qabin in aysan ahayn wax maanta ka turjumaya inuu qofkaas yahay wax dadaale maxaa dhacay hadduu naftiisa ilaabay oo wixiina wax faa'iido ka soo galayna uu waqti ku dhimanayo oo mujtamacii kalena ay ogaadaan ninka waxaa la ogaanayaa inuusan ahayn qof qualitygiisa fiican yahay mujtamac waxaan ka yimid hindida iyo carabta oo aniga aan maaragtay muddo soo joogno shaqaynahay qofkaasoo kale waa qof la ammaano oo wanaagsan ama la dalacsiiyo marka taa waxay keeni kartaa isku dhaca dhaqanada tan labaad oo aniga aan arkayna waxaa ka mid ah anigoo jooga Dubai aan ka shaqaynahay shirkadaan u shaqaynahay aniga iyo waxaan ahayn kaliya nin Suudani ayaa ka ahaa ajnabi inta kale Hindi ahaa ninkii sheekha ahaa ee reer Dubai ahaa oo meesha lahaa organization weyn uu leeyahay al-sheekh Saayq la dhahaa dadka waa aad u ixtiraam markuu albaabka soo istaagay xaflad aan qabnay ilaa 55 60 waa dhan waa ahayn waxaan arkay ummadiyo dhan wada istaagtay aniga fadhiya iyo kii Suudaanka ka Suudaanka waa qoslay waa fahmay aniga waa qoslay meesha marka Suudaanka wuxuu ku qoslay in aniga aan yaabanahay sababta loo istaagay ma istaagin aniga meesha la istaagay dadkii oo dhan waa wada istaageen markuu baxay markuu meesha imaaday waa la fadhiistay hindida marka cabsi iyo ixtiraam iyo sharaf qof walba oo awood leh oo marti mansab leh ama ha noqdo wasiir waxay u ixtiraamaan fadhiga uga kacaan waa dhaqankooda way haddii hindidaas ay soo baxo u yimaado meel Sweden oo kale isla markii anigii dhaqankaas soo arkaya waxaan imiday Sweden shaqa ka bilaab arkay waxaan arkay kan kheefka meesha ugu weyn iyo gabadha stadishka ah ama nadiifisada ah inay meel shaha ku wada cabaan oo sheeko rasmi ah oo muhiim ah ay wada haystaan markaas waxay caddaatay runtii labadan ummad oo u kala duwan inay farqi weyn u dhaxeeyo su'aalan kaa weydiiyo su'aal intaa kaa weydiiyo fiiri intaanad dibadda joogin waxyaalo badan waxaan aragnay aan la yaabnay oo waxaad arkaysaa dabcan halkan aniga maalinta ugu horeysan anoo shaqaynaya waxaan la yaabay qadada bacdal maaragtay qado ilaa shaqada laga baxayo saacad iyo nus saac waxaa jir marmar break la qaato marka break ay qaataan waxay u yeeraan happy hour meesha maraykanka la joogo happy hourna waad garanaysaa waxay tahay oo
intay baxamay biyaha kula kusoo dhufanayaan wada shaqaan u joognaa biyaha kula waa maxay annagana duhuradii baan annagana dee business walba duhuradii markii la gaaro wax kasta waa la xiri ya wax kala socota iyana soo dhagudsanaya soo seexanaya marka dhaqamada aad u kala duwan yihiin intaana ku weydiin su-aasha rabay inaan soo diyaarsaday soomaalida dhexdooda ma ka aragtay dhaqamo kala duwan oo kala gedisan ama ilaa isku dhac gaaraya markaad ma ogtahay haddaan soomaali muslim baan nahay ajnabi baan laakiin soomaali dhexdeeda ma ka aragtay cabdifataxna waan ku weydiin su-aasha أنا أقول مرة أنا waxaan leeyahay wasiir magaciis qoraaga martida noo ah iigu celi aweys cusmaan aweys uu leeyahay ama aweysaan dhahooyaa marka arrintaasi dhawaaqa xitaa dhaqan ma noqonaysa waa sax waa runta aniga tusaalaan ku siiyo horta soomaalida boqolkii 9 waa isku dhaqan haddaan runtaan sheegno dad muslimiin oo isku dhaqana walaalo laakiin waxyaabo boqolkii 10 uu kala duwan yahay waxyaabahaasna ma aha wax la qariyo horaa loo sheegay aniga waxa igu yaab ka badnaa aniga xamaraan ku dhashay muqdishoan ku dhashay iskuul ka dhigtay marka laakiin 3 jeer aan aaday Hargeysa walaalahayga Hargeysa waa u sheegan waa la kaftamaa waxa igu yaab ka badnaa meel aan joogno marka wixii aan alaab rabno inaan ka gabanno wixii marka anaga waxaan aqaan inaan gurgurtamo wixii sidaan waa sida kan ma fiican yahay waxa marka qofkii alaabta aan ka gadanay asiga iga xanaaq badan wuxuu ku leeyahay ama qaada ama iga tag marka waxay la noqotay wax cajiib waxaan arkay nin miskiin ah oo raba inuu noo yimiday oo raba inuu waxna siiyo anaga waxa u bartay magan Allah magan rasuul inuu dhaho tartiib marka ninkii waxaan arkay wajigiisii iyo wixiisii inuu dagaal u socdo kale marka arintii waxay ugu noqotay wax oo cultural shock marka waxyaabo badan oo waxa jira Soomaalida dhexdooda waxyar ay kala duwan yihiin oo maragtay ay laakiin boqolkii 99 waa la isaga mid yahay marka maxaa adiga la iishub yaa kookoshaha iishub idee noo shub labadaasaa isku dhacday miyaa wes odayaan saaxiibanahay oo reer gaalkacya oo laga yaabo inuu hadda daawanayo ayaa wuxuu ka hadlaa intuu meel makhaayad tegey ayuu wuxuu dalbaday koob shaaha marka gaalkacyiisha koobkii baa loo keenay waa uu cadday sonkortaa ku yarayd wuxuu yidhi bal maaragtay sonkorta shaaha iyo sonkor bala waa maxay kase waxaa lagu yidhi ma dadkan kalaa ka dhaanta adigu dadkaa miyaa kabja cabtaa dhiga shaahi cabayaan cab wana makhaayadii meesha fadhiyaa moogta su-aal hadda halkan kaa weydiiyey marka adiga xaalad bahdil ama dhaqan isku dhacay oo la kulantay adoo shaqo joogo buuggaa ku xusta nooga waran xaalad shaqo adoo shaqo jooga oo hadda Sweden jooga oo shaqeynaya xaalad aad la kulantay adiga shakhsiyan oo dhaqan gediskaas oo isku dhaca ah ama xitaa ay noqotay bahdil sarbeebsan wallahi horta meeshan shaqada markii la dhaho waxyaabo badan ayaa lagu kala duwan yahay dhinac walba habka dadka ay u shaqeeyaan habka ay u fikiraan iyo sida ay u aaminsan yihiin waxoo dhan waxa waaye waa yani waa lagu kala duwan yahay caadi ahaan laakiin aniga waxaan ku fiicnaa ama ilaa haddana muhiim ila ah maadaama aniga aan keligeyga ahay oo dhaqan gooni ka imid dadka meesha degan waa fiiriyaa habka ay ayaga u dhaqmaan ay u shaqeeyaan habkiian raacaa wixii keliya aan diinteeda igsoo aan maaragtay aan raalli ka ahayn mooyaane wax alla waxay sameynayaan waa sameeyaa maaragtay caadi ahaan marnaba waa iska ilaaliyaa isku dhac inuu yimaado isku dhaca badanaaba u fiirso isku dhaca dhaqanada rasmiga ah wuxuu ka dhex dhacaa qof run ahaantii aqoontiisa ay yar tahay haddana fursa helay oo meel weyn lagu soo tuuray
oo xataa afkii dhibaato ku ah marka qofkaas wuxuu u nool yahay sidiisii Soomaaliga dhaqankiisa boqolkiiba boqol ama hadduu yahay Suudaan Soomaalida kale ima carabta sidaas oo kale marka laakiin qofka kale waxa waaye isla markii wuxuu diid ku haya dhaqan kale waaye marka dhaqankaas la qabso yani يوسف وشخص إسرائيلي يتلعب كسته وايه سؤال هذا كاوي دي بوجا مركا بوجا مركا أتقريش أما بوجا أنا كده يقولون كان لبعض يكفي هربا عقبها لوكولنتي إنه هو هذا وحيدها إنجليزي بيجا رايترز بلوك وحلاقي أبغى قرية هالمريض باشا دم مسكح لي نقطة مركا بحال لوكولنتا وعريس مركا بوجا قريش marka buugga la qorayo marka hore waxa ugu weyn waxa waaye adigu waa jeceshahay marka uu koowaad sida adigu u fikiraysid sida u qoraysaa laakiin waa inaad ku xisaabtantaa qofka adiga oo aad u qorayso waa qof akhrisanaya marka sheekadaas sida ay ugu dhadhabi lahayd dadka kale oo akhrisanaya waa inaad ku fikirtaa taasaa ugu culays badan waxaa kaloo jira muhiimadda waxa waaye marka hore waa qoraa aniga si raf ah عادي أنا أقرأ شيء سي أيسن اللوكال إلابين مركا أدم وان دمية هذانا مرة بعد يديب ونخنسا سي أد ماركتي وحي إن ماركتي ضدك أي آخر سنكران أما يهدا إنات بارتان كسمة سو أد بيرسو صالحان إسكو كيمد ما هن بوجا سكيلس جود مركا قرأ أي بوجا كله بوجا سكيلس جود شيء كذا قلبي جيجو كسور دعضو شيء كوحيد ووحن أنيق ألفي مركا سعادة وقرأي لكن بوغن كله وحن كفكر وأنا كفكرة وحيابها سيدة الشرعية وضنك إن بارتاوان من خوف كسمية مركو يهبوك أنا أهان بوك لا ألفي كلية وبوك ريسيرش أو كله أو أصلنا وحن هدي سيدا ورقتي مية هاي وأنا بدوي ديسا مية هاي وحيابه بدن وماركتي إن أي طبعا waxyaabaha oo muhiimka ah maragtay keenayna waxa kamid ah tusaale waxa soo qaatay waxa la yiraahdo waqtiga difataah waa og yahay Scandinavian-ka adigana waa la socotaa yurtonan marka Soomaaliya iyo meel aan ka imaadno wadamada Carabta laftigeeda aan ku noolaa sida waqtiga uu nala ahaa iyo isku mid maaha iyo sida ay wadamadan kale ay kala yihiin aniga waxaan arkay Dubai anigoo jooga nin Carab ah isla soconaa تلفون أو صوت عي وحربا أدت كله أو على يعني بيزنس كبحي إنه كجالسون دبي إلا يا أبو ظبي وحلاص صعدا وقت ده خف كي تلفون وحكليه يعني خلال 20 دقيقة بنكون معك يعني 20 minutes وكل جونا ماشينا وحن أوجه إنه بهان تاعي ويران هالساعة يوحك ده مركوانا حنا أسافري markaas waa igu jirtaa ani waqtiga inuu qiimo leeyahay marka waa maxay waxa uu dhahay afarabi uu sheego wuxuu yiri hadaa runta uu sheego ninkii waa naga tagayaan wuxuu leeyahay anagaan u baahan mareeda marka meeshii waa tagnay waa daahnay arintiisu waa u hagaagtay marka ninkaas u martay habka soo koray waqtiga in yani dadkii meel la fadhiisiyo ay si sugaan sudanayso gaaro ma u arkin wax khalad ah meeshana waxaan u nimid dadku xisaabtama halkii maaragtay minute waa 60 oo maaragtay seconds seconds ay ku leeyihiin konta second ka hor aan imaanaya marka bal fiiri yani u dhahay hal saac yani hal minute ayaa la kala qaybinaya si meeshii loo gaaro qofkii balan kala lahaa yani inta laga soo daahay haddii 5 daqiiqo ay tahay daahitaankana in qofkii telefoon loo diro sorry marka waxaan adi xataa waa u jeedaa qofkii fiican oo cusub marka labadaas ninkaanna waxaa laga yaabaa ummad iyo dhan inay isku raacday mana ahan wax ceeb ah tusaalaan ku siin karaa hataa xamar ku dhacday meel badan ka dhacday markii ummadda oo dhan ay dhaqan ka dhigtaan waxyaabaha ma ahan wax khalad ah laakiin waa wax laga fiican marka waxyaabahaas oo kale wuxuu keeni karaa isku dhaca dhaqan waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo wasiir guuleed qaasim adigoo yar ayaad soo gashay Yurub waxaad waqooyiga America raalli ah waqooyiga America ayaad ku kortay waxaad ahayd askari Maraykana shaqadii baad ka fasax qaaday hawlo kale aad gashay waa lagu qaaday rab Soomaaliya ku baahatay
wasiiradii dhalinyarada ahaa ee maaragtay xirfadlayaashii aqoonta lahaa ee lagu daray baad ka mid ahayd adu ma dareentay dhaqan kala duwanaansho adoo Soomaali ah markaad Soomaaliya ku soo noqotay maxaase xusid mudan oo dhinacaas isku dhaca dhaqanada adiga iyo wasiirada kale ee aan say wallahi ga ahayn bismillah horta kama leexanay aniga say wallahi baa iska ahay moogtay waa taasi gacan maana ku leeyahay yar baa Soomaaliya laga soo kaxiyay marka haddii horta aniga arrimaha la yaabay waxay ahaayeen oo de aniga noqday moogtay maxay dhaheen ana waa mas'aadan baa laga heesaya ninkii waa la noqday moogtay Soomaaliya say wallahi waa laga qaaday waa shaarkayga ma siibanaya cidna ma dhiibayo wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada waxaan rabnay waxyaalo badan inaan hirgelino waxaan u imid agaasimayaal wada diyaarsan runtii iyo xafiiska wasiirka laakiin shaqaalaha guud ee wasaaradda ma diyaarsanayn marka anigu waxaan isiri bal waayahay maaragtay wax isku day sida galbeedka laga yaqaana aniga shaqada waxaan imaan jiray 8 subaxnimo 8 a.m. marka ciidanka iyo xogayaha xafiiska way ka xishooday inay yiraahdaan wasiiro cidna wasaaradda ma fadhido marka anna ma ogi ma ogtahay xaadir 8 a.m. aniga waa fadhiya waxaan leeyahay meeshan dadkan ma shaqa imaanayaan maxaa jira dadkii aad inaad duhurkii baan la imaanayaa duhurkii markii la yimaadana haddaad inaad la kulantid 2 saac ka badan ma joogi karaan oo amni iyo security waxaa jiro meesha lagu kala tagaya anigii wasiirka marka waxaan noqday ninkii shaqada ugu horreeyay waxaana mara noqday ninkii shaqada ugu dambeeyay oo xafiiska weli fadhiya marka waxayna keenaysaa sidoo hadda ma ogtahay aways uu sheegay haddii aadan mandaqada aad la joogtid aadan ka warhaynin qofka ma ogtahay soo galootiga waa adiga you are the foreigner bay dhahaan ma ogtahay marka de anaa noqday inaan adjustment sameeyo oo ma ogtahay aniga dhaqankii aan la imid oo dhaqankii shaqo inaan wax ka bedelo oo barto inaan guriga ku shaqeeyo iyo inaan waqtigii shaqada laga baxay aan habeen barkii waa iyo Soomaaliya waxyaalo badan baan la kulmay waxaa la kulmaysaa siyaasiyiin ardayda maanta la kulantid oo casarkii ilaa maghribkii hurda adigana waxaa rabtaa bacda al-cishada iska seexatid raggaasi caaway kuu soo seexanayaan caawa dhan baa lasoo fadhinayaa adigiina ma ogtahay markii la gaaro habeen bar maskaxdada waa eber ninkana gaabtu kuu soo seexday dood buu raba marka waxyaalahaas kala duwan ayaa shaqo ahaan la kulmay waxyaala kala jiro ma ogtahay dhaqan ahaan sidoo hadda uu sheegay doctorka Mareykanka iyo galbeedka waqtiga aad baa loo ilaaliyaa anaga haddaan Soomaali ka baxaya anaga haddaan Soomaali nahay xilliga ama saacadda salaada uma ilaalinaa wax kale aan ilaalino haba yaraatee ma jirto waa saas waay marka dhaqan biis baa la noqonayaa haddii aad dhaqankii ka hortimaado adoo saxan xitaa may adaa lagu bedelaya waa in adiga lagu bedelo laga badan yahay ustaad aweys horaan ugu soconaynaa waxaan rabay inaan uga faa'iidaysano wax yar waqtiga noo haray isku dhaca dhaqanada markii laga hadlaayo keliya kuma koobna goobaha shaqada iyo eliidka iyo dadka hay-adaha iyo meelaha kala fog xitaa qoysaska Yurub markii loo soo qaxay xaggaas barnaamijyo tababar waalidiinta aad u bixisaa oo ah dhinaca barbaarinta toosan marka dhinaca isku dhaca dhaqanada waalidiinta markay maxaa ugu badan ee dhex mara carruurta halkan ku dhalata ama kuwa ku koraya iyo waalidka traditionalistiga ah ee hidaraaca ku dhegan weli dhaqanka waa mahadsan tahay waa meesha ugu weyn run ahaantii uguna muhiimsan ee isku dhaca dhaqanada uu keeno dhibaato weyn uu keenay waalidiinta kaliya maahan carruurta dhalinyarada kaliya maahan mujtamac oo dhan sidaa la socotid cabdifatax waa degan tahay waddankan waa la socotaa wasiir adigana waa maqashay waxa way dhibaatooyin badan oo dhalinyarada Soomaalida hadda qabsatay qaar badan oo nasiib daro Allah u naxariisto oo la dilay qaar badan oo la xiray qaar waxyaabo badan oo waxaa jira oo aan markii waddanka la joogay aan marti soo bixi jirin marka ku dhaca dhaqanada habka waalidku u fikiro habka ay carruurtu u fikiraan habka dadka ay u fikiraan oo la soo qaaday meel
mujtamac oo dhan siday u fikiraan ay kala duwan yihiin aways waxaa kugu furan baan u malaynayaa ustaad aways waxaan u malaynayaa cillad farsamo ayaa qabsatay wasiir xaggaas aan xoogaa kasii wadne markaa hadda tagtay khaliijkaad ku maqnayd safar ma dareemaysaa safarkaagii ugu horreeyey miya muu ahaa mise wax farqi weyn ma dareentay hore hadda protocol baad leedahay waan ogahay waa lagu sii waxbaa lagu sii siiyey warbixin may horta fiiri khaliijka safarkii ugu horeeyay ma ahayn mar waxaan xasuustaa waxaan ka anoo dowladda ku jira ayaa waxaan ka duulayay muqdisho waxaan u socday waddan ka mid ah khaliijka anoo wasiir marka airportka muqdisho marka meesha VIP da marayay waa lagu baaraya markasta waa in lagu baaro aniga dhaqanka galbeedka wataayo moogtay amniga waa inay ku baaraan haddaad diyuurad raacaysid marka waxaa VIP da waxaa iga horreeyey dad madax ah oo meesha VIP isla gelayna moogtahay oo diiday in la baaro ma taqaanaa miya ninka ii baaraysa airportkan galaya nin waxaan haysaan qof saas marka waa la yaabay bas saasaan ku baxay saan ku socday wadankii carabtaan tegey shalay waxbaan ka qayb qaatay marka aan soo baxayey isla carabta protocolka maroo ku fiican yihiin oo VIP soo mariyeen isla meeshii oo kale waxaa maraya dad ka tirsan qoyska boqortooyada oo dalkaas ah sidii oo kale dhacday marka nama taqaanin miya anaga reerkaasaan ka tirsannahay sidee loo baarayaa marka waxaan arkay soomaali iyo carab inaysan kala fogeynba ya ma kala foga dhaqankii luuqadii baa kala duwan lehe laakiin dhaqan ahaan marka hadda khaliijka safarkii hadda aan soo maray runtii inta badan waxaa is leedahay soomaali baa dhex joogtaa cuntadii dhaqankii salaada waqtigeeda waa la ilaalinayaa laakiin ballantii ayaa waxay tahay ma ogtahay saacadda ilaa saacadda markaa kusoo aadid un marka waxyaalahaas way iska jiraan galbeedka waxaa kaloo dheeriya waabaan japan joogay sanad shaqo u joogay waxaan xasuustaa tareenka la qaato oo mogtahay shaqada lagu aado ayaa wuxuu soo daahay 1 daqiiqo maalin 1 daqiiqo soo daahay 60 second 1 daqiiqo soo daahay ninkii tareenka waday waxay noqotay inuu bixiyo raaligelin caalami ah caalamka oo dhan waddanka oo dhan ilaa international gaarsiiyey oo halkaas shaqada iska casilo oo waxay noqotay arrinta laga warhayay oo hadalhayay maalintaas oo dhan marka habka bulshada caalamka ay waqtigu ilaaliyaan iyo haddaan anaga soomaalinahay marka markaas oo kale waa khasab inay isku dhacdhaqan yimaado ralli ha ustaad aways waxa waaye barnaamijka marka cillad farsama xaggaaga ku timid qodobkii ku noqo isku dhaca waalidiinta iyo carruurta qoysaska qurba joogta ah isku dhaca dhaqan ee kala haysta meeshii ay ku maraysay insha Allah arrintan ani waxaan arkaa inay muhiim tahay maxaa yeelay hadda waxaan dhahay dhibaato kasta oo jirta dhalinyarada haysataa marka waxay salka ku haysaa kala duwanaanshaha hab fikirka iyo habka dhaqanka waxa waaye wixii aan ku soo dhaqmi jiray waa wax saxsan oo arko inuu saxsan yahay markii aan u imaado meel wixii aniga ila saxsanaa iyo habkii aan carruurtu ku barbaarin jiray waxaan u sheegi jiray wixii oo dhan inaysan sidaa ahayn marka ay carruurtu yimaadiin maaragtay bay'at ama field ay soo dhex galaan oo waxyaabihii shalayto badi loo sheegi jiray ama ahaa waxyaabo qaarkood oo ceeb ahayn waxyaabo maaragtay ay ku xumaayeen oo halkan loogu fiican yahay wixii oo dhan waxaa isku imaanaya inay isku dhac u yimaado waxaa ka mid ah waxa waaye wasaala carruurta la bedeli karo anagana habka keliya carruur badan ee jidka sax ay lagu haayay wuxuu ahaa in la garaaco la dilo lacanaanto habkay ku socdeen oo dhan wuxuu ahaa in haddii faraha lagu hayo hadday sameeyaan markii dhammaanteen waa nala soo dilay baddan aadaya ha aadin maxaa dhacay waa aadi waa lagu dilayaa
dilkii wuxuu ahaa marka sida booliis oo kale xanuunkaas aan naqaanaa waa cabsanayaan marka aabbaad ku dilaa marka haddii ilmaha ay u fiican yihiin keliya cabsi ay ka baqaan in maaragtay la ciqaabo marka maskaxdooda wixii fiican iyo ma kala baranin marka ayaga ma dooranin hadday fursad u helaan in qofkii maaragtay oo qofkii garaaci jiray hadduusan joogin waa sameynayaan wixii ilaan adiga kama dhaadhicinin ma dhihin waxaan waa sax waxaan waa qalad ha sameynin ma dhihin maxaa samaysay momentigaas keliya ayaa garaacday isla markii waa dhaafasay macnaheeda maaha inuu weligiisa ka dhaadhacayban marka waxaan ugu nimid meel garaacitaankoo dhan la dhahay waa qalad waa mamnuuc waa dembi weliba waa dhibaata kaaga imaanaysaa in loo baahan yahay carruurtii sida qof weyn oo kale inaad la fadhiisatid aa u sheegtid u sharaxdid marka dhaqankaas oo garaacitaanka iyo dhaqankan hadalka ah waa iskeeni waaye waalidiintii marka waxay sii wateen ayagoo jooga waddankii Sweden ama meel kale jooga habkoodii dhaqankoodii sii wateen guriga ilmihiina dhaqankii waxay la qabsadeen oo maaragtay iskuulka oo ahaa Swedisha marka labadii dhaqan waa iska hor yimid markay iska hor yimideen ayaa waxaa dhacday cunugii inuu dhexda ku dhumo dhinacna wuxuu ka haystaa guriga waa dhaqankii Soomaaliya dhinacna waa dhaqankii Swedishka ama Europeanka marka ilmihii haddaysan awood u lahayn waxaa laga yaabaa labada meelba inaysan raacin oo dhexda yani uu laga sii jiito oo dhibaatada ugu weyn oo noogu imaan karto waa taa marka maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay waalidka laftigiisa inuu indhaha furo horta waalidiin qaaraanba ogeen meesha ay yimideen waxaa lagu arkaan keliya waddan gaalaan nimiday dad waxaa u nimid dhaqanka anaga aan haysan iyo dhaqankan waa kala duwan yahay waxyaabahan kala duwan yahay inaan fiirino weli ma sameynin inaan baranno inaan ogaano waxyaaba qaarkood haddii dhaqanka looga daydo wax dhibaato male waxyaaba qaarkood haddii looga daydo diintay khilaafsan tahay waxyaaba qaarkood haddii looga daydo waa lagu liibaanaya waa faa'iide leh waa saddex qaybood dhaqanka qaar ka mid ah lama qaadan karo waxa waaye diinta ay khilaafsan tahay qaar ka mid ah haddaa qaadatid waa ku guulaysanaysaa waana lagaaga fiicaya qaarna waxa waaye waa caadi marka intii waxay u baahan tahay su'aalan kaa weydiiyo waqtigii waa nagu socdo su'aalan kaa weydiiyo halkaasi dhaqanka isbedbedelaya ama isrogrogaya waa arrin oo anaaba kusoo koray dibadda ciyaalkana dhibaatooyin fara badan ayaa ma og tahay ayay la kulmaan oo identity crisis Soomaali maan ahay ma Swedish maan ahay ama European miyaan ahay ama sidaa marka su'aal haddaan kaa weydiiyo meel Soomaaliya ka dhow hadda Kenya waa tagtay waa aragtay bulshada hadda ku dhaqan bulshada Soomaaliyeed oo ku dhaqan Kenya oo kale arrintaas oo kale ma ka aragtaa in dhaqankoodii iyo bulshada dhex nool yihiin iskeeni la'dahay marka Kenya raba inaan kaa weydiiyo iyo carabtaba intaan galbeedka usoo fogaan dhaqankii khilaafaadkii si zaa'id baa loo arkaa mise waa wax la xallin karo marka la joogo Afrikada kale iyo carabta mise waxaad leedahay khilaafaadka ilmahaas ay la kulmaan inta badan waa galbeed wasiir waxaad keentay observation aad u fiican maxaa yeelay khilaafka anaga iyo India iyo ama carabta iyo kan Europe aan ku sheego waxaad keentay يعني point aad u fiican oo muhiim ah waxa waaye farqiga u dhaxeeya dhaqanada hadduu aad u weyn yahay kan Sweden iyo anaga waxa waaye aad u balaarnaa يعني farqi weyn aan oo dhaxeeya kan Kenyaanka waxaan nahay dad wada Afrikaan ah masaajiddu way ka jiraan waa dad muslimiin qaarkood inkastoo ay u badan yihiin Kristaan laakiin dad waxa jira martay meel badan oo Mombasa iyo meel badan dhinaca the level of martay nolosha xaaladda nolosha waa isaga mid nahay waxa waaye dad waxay u badan yihiin economically oo yani dad faqiir leh dad waxa leh marka habka ganacsiga waa isaga mid waxyaabo badan oo kala duwan aan isaga mid nahay wax yar aan kala duwannahay oo luqadda ah iyo marka laakiin dadkan aan nimiday run ahaantii waxa noo dhaxeeyay waxa ugu weyn waxa waaye waqtiga dadkan waxa waaye markii ay carruurta dili jireen waxa laga joogaa 50 sano markii maxay dhahaan ay dumarkooda waxa jiri jirtay waqti loo ogolaan inay codeeyaan waa gorma 50 sano waxa jiri jiray waqti problemkaas oo dhan 50 sano ilaa 100 sano wixii ay ka soo gudbeen ayaa anaga hadda ku soconaa
aan joognaa annaga markaan leeyahay ma aha keliya soomaalida wadamada carabtaana la mid ah afrikaantaana la mid ah marka dad meeshaas soo gaaray horumar iyo waxyaabo fiican iyo waxyaabo xunba ku gaaray iyo anagoo hab ka nimid marka farqigaas ayaa dhibaato weyn ka iman kartaa laakiin haddaan tago sacuudiga waxaa laga yaabaa in sidii soomaalidoo kale ay family badan ay hal guri wada degan yihiin carruurta ay isdagaalaan ilmaha lagu dilo wax dhibaato ma jiro kenya saasoo kale carruurta waa la dili karaa marka laakiin wadamadan yurub waa aad u kala duwanahay farqiga waa weyn yahay dhaqan ahaan waxaa la yidhaahdaa galbeedka sharcigoodii dhaqankooda wuxuu ku salaysan yahay rights xuquuq bini aadan anagana teena wuxuu ku salaysan yahay responsibility moogta mar haddaad muslim tahay mas-uuliyad baa ku saaran dhaqankii baa ilaalinaysaa diintaada ilaalinaysaa marka right iyo responsibility waxaa laga yaabaa meelo badan inaysan isku mid ka ahayn marka waxaa kusoo laabo waktigeenii baa dhammaaday waa gabagabadii su-aalihii ugu dambe ku jirnaa aweys laakiin intaa su-aalahaas ku soo xirin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka ugu horeyso dhaqanada magacaaga aweys miya dhaqan ahaan mise waa awees baas inoo sax hadda ka hor ayaa aweys miya magacaaga noo sax hadda ka hor meel ayaa liigu cazumay aan buugga kusoo bandhigay waa maalinta ugu horeysa aan bartay in magaceega liigu qabsan karo qof fiican oo hadda aan ku fiicanahay ayaa wuxuu yidhi magacaaga aweys maahane si qalad ugu dhawaaqaysaa waa aweys waxaan dhahay aniga wiligeyga dadkii ii bixiyey waalidiintii ii bixiyey allah u naxariistee aweys ay dhaheen aweysaan wata wiligeyga aweyskiya ii socday marka su-aashaada waxa waaye meela qaarkoodna aweysaa laga dhahaa laakiin gobol koofri iyo xamar iyo meelahaas oo dhan waa aweys waa alif laakiin dad waxaa jira aweys dhaha taana waxaa ugu wacan masaarida waxaa jira dad dhan oo la dhaho aweys oo caar waxaa jira aweys bilالف waa jira marka labadaba waa sax waxa waaye ogaa waa lagu kala duwan yahay waa saa sheegtay dhaqan ahaan waa lagu kala duwan yahay marka aweys waay marka saas waay may aniga aweysaan isku aqaanaa laakiin dadna waxay weliba dadka qaarkood waxay dhahaan aweys kalimaya aweys ya-da waa uu muhiim aniga kuma daro ya-da aweysaan ku qortaa aweys aways marka adiga waa laakiin anyway waxa waaye qof bini aadan oo la rabo in loo yeero sidaba ha loogu dhawaaqo waa isku mid waa aweys ama aweys labadaba taas waay intaasna waxa waaye waxyaalaha yaryarka ee lagu kala duwanaan karo oo laakiin isku meel iyadoo loo wado ustaad aweys bugaag iyo howl baad ku jirtaa hadda laftirkeeda waxaa qoraysaa marka wax la qoraayana caqabad kama marna mar walba marka caqabadda ugu badan oo aad leedahay marka aan wax qoraayo caqabadaasaan la kulmaa oo dadka qoraayada cusubna caqabadaas saasaan uga gudbay aad dhihi lahayd marka caqabadda ugu badan ee aad noo sheegi kartid markaad wax qoraysid aad la kulantid nala wadaag caqabadeeda waxa waaye aniga ahaan shaksi ahaan iyo dadka badi waxa waaye mujtamaca audienciga wax loo qoraayo maadaama af english iyo swedish lagu qoro hadduu yahay sheeko caadi ah aniga waa aad baan uga taxadiraa marna ma jecli wax aniga aanan aaminsanayn ama dhaqankayga kasoo horjeeda diinteyda kasoo horjeeda si dadka akhristayaashana ay ku farxaan waa iska ilaaliya marna ma sameeyo marka taa waxay keenaysaa in adigii buuggii marka inuu ku koobnaado meela qaarkood u lahaado wax la yidhaahdo cultural limitation marka taas laftarkeeda waxay leedahay si laisku waafajiyo marka laakiin marka aan rabo hadda waxaan faraha ku hayaa buuggan hadda oo ku saabsanaa dhinaca maaragtay clash of cultures wuxuu ahaa waxa la yidhaahdo workplace ama goobaha shaqada waxa hadda ii soo baxay meelo badan oo isku dhaca dhaqanada ka mid ah markii habka waxbarashada habka isku wax fahamsiiyo habka macallimiinta iyo ardayda xiriirka ka dhexeeya farqi weyn u dhexeeya markii la fiiriyo hindida
Indian schools waa soo arkay carabta Soomaaliya Africa iyo Yurubta sidaa la socotid marba waxa waaye Yurub laftigeeda horumaraas ala sii gaaraa waxyaabo badan la isku haystaa maxay dhahaanaa dhaqankana waa soo galaa meesha sex and samlevnad oo yani anaga uma baranin meeshan waa la bilaabay in la barto dhalinyarada in la baro macalinka sida uu abaaro waa lagu kala duwan yahay marka arrintaasaan rabaa focuska inaan saaro arrintaasna ma ahan arrin u baahan dhaqan iyo waxay u baahan tahay waa fact waxyaabo badan oo qofku uu dareemi karo oona ku saabsan waxa waaye caqabada keliya ay leedahay waxay tahay haddii wax aad dareentid raayidnaydid waxaa jira sharci ama taariikh oo hore loo maartay u ah kabitaan u ah marka qofka inuu research sameeyo soo raadiyo qodobkii kadibna uu dhaho professor hebel ayaa arrintaasna ka hadlay oo sidaa marka waxay noqonaysaa xogaa waqti qaadanaysaa marka laakiin waa waxaan rabaa halkaa haddaan laba su'aal kaa weydiiyo oo xilligeennii baa la joogaa intaana kugu soo wareejin cabdifataaxo waxaad hadda taabanaysaa habka buuqa loo qoro oo baarista loo baahan yahay research loo baahan yahay qofkii soo qoray la xigsan karo oo reference la samaynayo halkaasaan ka keenay macluumaadkan ma la baran karaa marka maogtahay farsamada buuq qoraaga ma la baran karaa habka sida buuqta loo qoro iyo haddaa ku dari kartid dabcan wixii tala iyo tusaale iyo maogtahay aad u gudbin kartid bulshada Soomaaliyeed oo dad badan oo waxaa jira hadda raba inay buugaag qoraan laakiin ilaa hadda tilaabo aan qaadin marka ma la baran karaa habka buuqa loo qoro iyo maxaa tala siin lahayd waxaan tala siin lahaa horta waa la baran karaa kow laakiin barashada waxaa ka horeeya jaceelka qofka uu qabo inuu maaragtay qoro taana jaceelkaasna wuxuu ku gaari karaa qofka inuu asigiis arko inuu wax alif karo yani uu yahay qof creative uu yahay creative يعني هدي أديك قفك أتاه أفكي أتقانت أو أما في سومالي أما إنجليش أتقانت لكن يابي دتك أي كأخرس الله هاي أي سنكوك صور بالنيمين وأنا سميسا وحقوه إنه تالو بركة وحواي كربا إنه وحقره وإنه النقطة أخرست في عن هدوره إنه النقطة قراب في عن قف كان وح آخرين وح بجي سنين وأدوي كلا أركين هدو وحقره وحقرنا وكسابسه السجع يدتك familkiisa kaliya marka dhibaatan laakiin hadaa adee akhrisid sheekooyin ku saabsan taariikh ku saabsan autobiography dad hindi ah Mahatma Gandhi iyo meelaha dhaqankaas hadana carabta oo soo baxday aad barti kordhisid yani waxbarashadaada iyo aragtidaada aad si weynaysid waxa kaaga soo baxaya adigoo aragti badan haysta mid aad ku dabaqi kartid Soomaalida maxaa yeelay waxaa jira waxyaabo Soomaali u baahan asku soo qaban kartid problemka Soomaalida midalan ba qabiilka naga haysta iyo adduunka wixii ka dhacay ama siyaabo isugu dhow waxaad ku qaban kartaa Soomaaliya waxyaabaha ka dhacay caadooyinka iyo adduunka marka laakiin hadii qofka uusan akhrinin meel badan marka aniga taladeeda waxa waaye qofka raba inuu wax qoro wax aqoonaysid waa inuu ku jiraa madaxaaga Sooma madaxii waana ku shubtaa waxa uu shub kartaa inaad si fiican wax u akhriso aad dhegeysato problemka weyn cadow weyn oo meesha jira waxa waaye shan waxyaabood ayaa jira madadaalana way jirtaa oo waqti qaadanaysa social media madadaale iyo waxyaabo badan oo aragtina marka dadkii waxa maanta u sahalsan inay video ay daawadaan oo sheeka waqtigii marka 24 hours haduu yahay inta waqti la saxay waqti la shaqeeyay waqtiga soo hara waagi hore wuxuu ahaa dadkii waxay ku bixin jireen inay wax akhriyaan marka hadda waqtiga la siin karo in wax la akhriyo waa yaryahay marka qofka haduu waqtiga uu wax akhrin karana uu yaraaday ama waxyaabo kale uu barbari karo ma noqon karo qoraa fiican wuxuu noqonaa kaliya qoraa wax isku keenay oo wixii marka soo bandhigay dhibaataas aad jirto runaantii waxaan soo gaarnay gabagabadii gunaanadkii barnaamijka aweys aad iyo aad u mahadsan tahay wax su'aalaha ku haray wasiir Guuleed may waa isku soo laaban doonaa hadii ilaahay yiraahdo laakiin caama barnaamijyo kale isugu imaan doonaa barnaamijyada wacyigelinta iyo arrimaha siyaasadda iyo jihaynta guud ahaan bulshada Soomaaliyeed haduu Ilaahay idmo barnaamijyo badan insha Allah marti nooga noqon doontaa aadan kaaga mahad celinaynaa inaad ka soo qayb gashay oo naga ogolaatay inaad barnaamijka sirta qalinka marti noogu noqotay xalqadii 7 kelmadaadii ugu dambeysay tay hore waxay ahayd qoraayada ku wajahan
laakiin kelmadaadii ugu dambeysay ee aad guud ahaan daawadayaasha dhab t v iyo ummadda soomaaliyeed ba aad u diraysid inaad noogu soo xirtid kadibna barnaamijka aan caawa intaas kusoo gebagabayno caawa markaan leeyahayna dhulka aan jooga ayay habeen ka tahay meelaha qaarna waa u maalin marka goortay idin tahayba insha allah ha idin wacnaataan leenahay daawadayaasheena marka kusoo dhowo Aweys kelmadaadii ugu dambeysay oo aad guud ahaan daawadayaasha kula hadli lahayd waa mahadsantahay cabdifataax hadalka rabo oo runtii aniga aan kula lahay maanta inaan sheego waxa waaye ama qoraan noqo ama fanaan noqo ama maaragtay noqo qof dadka lecture u jeediya dhammaan waxa waaye caalamka oo dhan waxa wax ku soo kordhiyey adduunyada xaliyey waxa waaye dad dhib haystay say dhibka uga baxaan ay waxyaabo badan horumar u gaareen soomaalina maanta dhib weynaan haystaa dhinac walba ma aha siyaasadda keliya arrimo badan isku qasan dhinaca waxbarashada dhinaca jahliga dhinaca qabyaaladda dhinaca siyaasadda dhinaca maaragtay habka wax soo saarka ganacsi wax oo dhan ayaa isku xirxiran Soomaaliya ilaa iyo muddo dheer habka kaliya waxa talada aan soo jeedinayo waxa waaye ninka qoraaga markuu wax qoraayo ha isku dayo in waxaasi inuu bidaadan u faa'iideeyo siiba Soomaalida inay ka faa'iideysteen kan maskaxda leh murtida leh hadduu ama qalinka uu isticmaalo inuu wax bedelo حتى هل قف بدله وهو ناقصن تاع كان أهل الدين كه إنه دتكي بدله أما دين الدين توك بدله أما دتكي إنه في نادم مركب لمان هدي لقى فكره سيدي واحد لو بدل لها أو وحول لا يطلع واحد على كينها وأنا مرتي وحين نكون يسا وحي إنه هرمر لوجار لكن نبتي هدين نقطة أنا الشخصي أهان كلي أنا كفكر الشخصية ده أما أنا وحي فايدة أم خبر أما كذا أنا كفكر مجتمع جود هذه واتي لذا سوماليا إنتو مكان ماله بروبلم كواسي صعدا عقلي جانا يمسك عندنا نسوق جينو سيدي أن وكيل اللي هي إسبدل وين إسبدل كاس بروكو إيمان كرا تلو غير حساب حكمتها هاي الدنيا ده واتي صومرتي ويك بحري السويدة وحكي جري قبيل مريكان كقبيلة كجري ما أهش طبعا سنة بقول سنة ما مركب دبلون نقدر نولي بوحواي وحركيسا جروب اللي هاي سلو السعودي وحبا بدلي محب بدلي وحاول قرنكيا عبتي شعبكي عاديها باهيا يا لا دغالمي ودكان سويدن hadii maanta la joojiyo mucaamalada la siiyo dadka hadii la joojiyo iskoolaadkan firiiga quraacda dadka la siiyo la joojiyo oo wadanka faqri uu noqdo Soomaali waa laga dareeyaa dadku isku dhacayaan dhibaato ay imaanaysa marka waxay la soo baxeen waxa la yiraahdo welfare ama welfare system marka anagana dhibaato qabiilana haysata dhibaato oo soo socota haddaan fikirno aan isu geyno qorayaasha dhaqaatiirta dadka maaragtay dhammaan ahlu diinka waxay imaanaysaa in wadankii aan ka xoreyno qabyaaladda iyo problemka soo noqonayo oo aan midnimo aan keeno insha Allah intaas aan dadku dhiirgelin lahaa insha Allah barnaamij aad u ballaaran oo masiirka ummadda ah ayaa insha Allah marar badan marti nooga noqon doonta hadduu Ilaahay idmo insha Allah markaan ka hadlayno mawduuca mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ee guud ahaan ba Ilaahay ku beeray geeska Afrika daawadayaal waxaa intaasi ku dhan xalqadii toddobaad ee barnaamijka sirta qalinka halka aad kala socotaanna waa dhab TV barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay oo soo saare ka ah caawana waa aniga oo Cabdifataax Baana Caymuun marti sharafka barnaamijka madaalaha barnaamijka waa wasiir guuleed Qaasim waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa martida mar walba noo timaado caawana uu miis masraxa noo saaran yahay Aweys Axmed Cusmaan qoraa barasare cilmi bare Aweys aada u mahadsan tahay sidoo kale idinkana aad u mahadsantihiin waxaa idinkaga sii tegayaa wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته. دب تي في هجها يكسي